السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا رديدي dadka kale ku xiran bajina keenan casharada caafimaadka waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. muuqaalkan cusub maanta waa raaligelin iyo ogeysiin. raaligelinta waxaan idinka raaligelinayaa intii aan maqnaa ee ku dhaweyd muddo ilaa 14 cisho ku dhaweyd ayaan idinka raaligelinayaa taasoo aan ku maqnaa arrimo xagga jaamacadda marka imtixaanaad iyo waxbaan iskaga jirnay muddadu iska dhib badnayd waxa lama soo gelin karin marka wadna igaraale ahaanasaan wallow haddana xataa adan joogno waqtigu xataa iska yar adeeg yahay oo laga yaabo inaan muuqaalkii markaan soo gelinayo laba idin soo gelin doono labadii cisho oo maalin idin soo gelin doono taas waa taa raaligelinta markaan ka yimaado waxaan u imaanaynaa taa ogeysiinta waxaan idin ogeysiinayaa inaan britole bilaabi doono casharadii imtixaanaha sida pharmacology iyo casharo kale markaa idinkana faa'iideynaya waxaan kaloo aan idin ogeysiin doonaa inaan sameeyay bar Facebook oo Facebook page taasoo markaa aan xogtiina ku aruurin doono soona dhigi doono waxyaalo markaa dhiirigelin ah oo idinka idin muhiim ah iyo markaa casharada imtixaanaha aan soo gelin doono halka waxaan idin siin doonaa taladaas oo markaa aad ku meel maraysaan taladaas waxay tahay war haddaad doonaysaan niman yahow inaad taagad samaysataan ama aad wax ka midho dhalisaan waa inaad marka hore eegtaan waxa markaa aad doonaysaan inaad ka midho dhalisaan waxaa jira intaad sileedahay guushaada gaadhi waxaa jira caqabado ka hor imaan kara caqabadahaasi markaa way badnaan karaan marka caqabadahaasna waxaad inaad dhexda u xidhataan baawacan oo markaa aan idin hoos idin dhigin taas waa taa marka qof walba oo marka doonaya inuu wax bartana waxbarashadu kaliya qof kasta oo oran kara waxba baranaya waxbarashada kaliya waxay tahay in qofku uu dhexda u xidho weeye marka taasna waa talo aan idin siinayo dawo billahi tawfiiq saasino ahaan doontaa waynayo britole insha Allah muuqaalkana description-ka xaqiiso waxaan soo dhigi doonaa Facebook page-ka linkigiisa qof walba inuu ku dhuftaa comment-kiisa ra'yigiisa iyo wuxuu qabana waynu idin soo jeediyaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.